qisada anime-gan waxay ku bilaamaysaa wiilkaas waxa lagu magacaabaa Tojima wuxuu bilaabay inuu ku tababarto geed wuxuu si xoog leh u garaacayaa geedka isagoo ku celcelinaya ereyga Rather Punch geedkaasna markuu si xun u faad ugu jiido ayaa xadhay inuu geedku dhaawaco wiilkii waxaana la tusayaa Tojima markuu yaraa wuxuu yaraantiisa daawan jiray TV-ga waxaana ka soo geli jiray filimkaas uu ka actor yahay in lagu magacaabo Kamen Rider Kamen Rider markuu wuxuu arki jiray geesi aan caadi ahayn oo dagaalyahan oo ninkan wuxuu la mid ahaa Salman Khan iyo Shah Rukh Khan ayuu la mid ahaa wuxuuna ku ceeshin jiray dhacdooyinka uu sameeyay ninkaas actorka ah ee dagaalyahanka ah ayuu mar walba ku celcelinsan jiray si uu daawado uuna xiiseyn jiray markuu dagaalamayo ninkaas lagu magacaabo Kamen Rider wuxuuna isagoo TV-ga garab fadhiya ayuu ninka Kamen Rider ku oran jiray hawo ogolaan inay ka guuleystaan kooxda lagu magacaabo Shocker ee ka badi sida inuu maqlayaba ninka wuxuu soo xasuusay sheekada yaraanteedii ku dhacday TV-ga markaan daawanay SpongeBob waxaas ka daawanay waxaas ku diijinana soo qabto laakiin waxaas soo wada maray markuu ninka Rider lagu magacaabo uu daawan wuxuu ku oran jiray dhaqaaq oo ka guuleysta kooxda Shocker Tojima wuxuu siinay muhiimada koowaad haliyigiisa xitaa markay hooyadii u socoto dhanka shaqada isagoo wuxuu u jeesan jiray dhanka TV-da wuxuuna daawan jiray Kamen Rider iyo sida uu si kalsoonida ay ku dheehanta ula dagaalamaya sharta ama kuwan laadarada ah maalintaas wixii ka dambeeyay waxa dhaw wiilkii inuu yiraahdo waa inaan noqdaa Kamen Rider oo maalmaha kamida aan noqdaa Kamen Rider sidoo kale imiga waxaan igu bilaabay anime-ga wiil yaro TV-ga wuxuu ka daawan jiray jeclaysan waxaasma inta dambe waaba qiiro iyo la yaab markaas wiilkii waxaan arkaynaa sanado kadib 23 sano markuu soo gaaray wax isbartaan gabadh iskuulka inay isku bartaan gabadhaas markay xoogaa gabadh isla socdaan ayaa maalmaha kamid ah gabadhiyo isagiiba kulma gabadhiina waxay ku tiraahdaa waxaan rabaa inaan wax ka codsado waxaan rabaa inaan ku sheego wasoo garaa maxaa rabtaa inay ii sheegtid waxay ku tiraahdaa waan ku jecelahay ninkii maxaa dhaca qalbiga uu degay xasilooni uu dareemay gabadha si qurux badan iyo maanta ugu dambeey kale ku jecelahay ayuu siriba kadib maxay ku tiri no waa prank taas ma kula kaftamay brother stitch hadana ninkii hal mar qalbiga qalbada bash ninkii hal mar hadana broken heart baa ku dhacay markay intaas ku tiraado waxa in rag imaadaan meesha waxna bilaabnay ku qosqoslaan wiilkay bahdilaan markay inta ku dhacdo waxa wiilku ku raahdaa maxaa ay ugu sameynaysaa waxa ku tiraahdaa tan waxay branki sababta kugu sameeyay waxa in shardi lagu soo xiray oo nimanka ay isla ciyaareen kadina shardi ay ku soo xiray shardigiina waxa ahayd inaan kugu sameeyo marka hore aan ka farxin kugu raahdo waan ku jeclahay kadib ma kugu raahdo waa branki oo kuma jeceli markaas aad wiilkiinu aad u murugoodo waxana dhahay dadka inay ku qosqoslaan isagoo bahdilan oo murugaysan wax bilaa meesha inuu iska dhaqaaqo laakiin gabadhaas Emily iyadu raali kama ahayn waxay wiilka ku sameysay iyo heartbroken ku sameysay markaas wiilkii Tojima wuxuu iska imaadaa meel wuxuuna bilaabay soo xasuustay xasuustaasi oo ah in yaraantiisii uu arkay wiilalkaas waxay ciyaarayaan xajara waraqa min qas kii ka guuleystayna waxay u doonaan inuu noqdo Rather kuwa kale soo harayna waxay noqonayaan Shocker ama koox Shock kuwaas oo sharlaawayaal markaas wiilkii Tojima wuxuu bilaabay iska eega dadkii ama wiilashii ciyaarey meeshaas wuxuu ku ogaadaa in ciyaar aan lagu noqon karin badal ama wiil actor ah hadaba ku soo laaban xasuusta kadib wiilkiisa meeshiis ka taagan iska fikiraya ayaa ximata gabadhi Emily waxaana ku tiraahdaa waxaan kugu sameeyo dhalinyaro lahaw kaska ma ahayn kaliya sharad ay ahayd oo sharadkaas ay rabeen iska fuliyo marka inta ku tiraahdaa wiilkii Tojima iska aqbalo markaas gabadhu waxay ku tiraahdaa wiilasha dhigtay iskuulkeen oo gabigooga wada tuugo waa maafiyo marka laga reebo adiga oo ah wiil miskiina oo iska caadi waxayna ku tiraahdaa adiga marka iskuulka joogtid miskiinimada darteed dadku waxay ku maleeyaan qof waalan oo aan sax ah oo caqliyan aan joogin markaas waxay maadaanin Ryota lagu magacaabo wuxuuna gabadha Emily ku yiraahdaa ma ninkan waalan ay rabtaa inaan la noqoto saaxiib wuxuuna bilaabay inuu ku jeejeeso gabadhi markaas ninka Ryota wuxuu ku yiraahdaa ninkan waa inta la saaxiib lahayd waxa ku dhaantaan adoo aan iraaxa wuxuuna bilaabay gabadhi gacanta u qabto masaaxa soo dhex gala wiilkii Tojima wuxuuna ku yiraahdaa gabadha ka fogo ku yiraahdaa masoo yaa isku manaysan marka gacanta qabanaysa markaas Tojima wuxuu bilaabay wiilka feero kadib waxa wiilka feerka inuu iska qabto markaas waxa inuu sii daayo wiilkii Tojima masoo wuxuu yiraahdaa waan ka argudan doonaa kadib waxa wiilkii inuu xanaaqo oo bilaabay inuu sanka galiyo feer markaas waxa inuu sankii wajiga u dhiigo markaas laba wiil saaxiibaha Ryota wax bilaabay soo dhex galaan wiilkii wax bilaabay laagan laakiin labadooda laag weyn intuu iska qabto iyagana garaaca Tojima markii dambe waxa dhahay wiilku gabadhu iska sii daayo markaas wuxuu soo dhulka yaalo wuxuu yiraahdaa waan ka argudan doonaa waana ka shalayn doontaa midaas maalmo kadib koox jooga ay wax bilaabay inay afduubtaan gabadhii Emily oo ka socda iskuul kale oo gabadha Emily iskuul ahayd wuxuuna bilaabay inuu wiilkii Tojima markiisa ku qayliyo yiraahdaa soo bax Tojima soo bax ku baahanahay ardaydii oo dhan saas u fiirinayaan mana jirin cid caawiso sheegta Tojima meeshuu joogo markaas waxa soo baxay wiilkii Tojima wuxuuna ku yiraahdaa Ryota waad iskeentay kaale
markaasaa Tojima isagoo jees ay ka muuqato wuxuu ku yidhaahdaa dagaalka awoodi waa dagaalka caruurnimada ee maa dagaal dhab ah. wuxuuna ku yidhaahdaa waxay tihiin caruurtaasoo iskuullada kolba ku dhex booteeya oo inagoo weli hooyadiin iyo aabiin weydiisanaya cunno iyo hoy meel ay seexdaan. laakiin maanta ninkaa isku taagaysid waalidka waxa uma weydiisto isagaa soo kasbada. wuxuuna ku yidhaahdaa haddaa rabtiin aniga ila dagaalantiin waa inay noqoto kuwan qaangaar ah sida isaga oo kale. markaase waxaa in qof walba ula yaaba hadalkan ku hadlayo wiilka Tojima, laakiin gabadhii Emily waxay u eg tahay mid aad u sii jeclaanaysa wiilkii Tojima. markaase waxaa in kooxdii soo weeraray wiilkii Tojima waxayna bilaabeen iskugu tagaan garaacaan oo dhan walba dhiig kaga keenaan. niyo miskiino waxay booteenayso hodigii lahaa wayna noqotin qofkan qaangaara ila dagaalama kaalay ciyaal baadiin hooyadiin iyo aabiin baa weydiisatay cunto iyo meel asiixati. waxa ninkiisaas ku sheegaya oo kala dilay bala garaacay la isma dhiibay Tojima. gabadhii Emily waxay bilowday in wiilkay iska fiirsato waxa ku dhacaya iyadoo ka murugaysan. kooxdiina waxay bilaabeen in wiilkay si xun u garaacaan oo ay suuxiyaan ama ay miir dabooliyaan. markaasaa Kiriyooto wuxuu yidhaahdaa abaalmarintaadu waa inaan qaata gabadhan Emily. wuxuuna bilaabay gabadhii Emily waxa foog ma kaliya uu soo qaato. markaasaa gabadhii Emily waxay bilaabeen wiilkii Tojima ka codsata caawimaad ku tiraahdo walaal caawi fadlan soo sar. laakiin wiilkii Tojima uu miir daboolsan yahay oo waxba ma qabanayo. gabadhii Emily markay ooyday ilintay dhulka ku tiixday ayaa hal mar waxa ay wiilkii Tojima dhac soo kala qaado hal mar waxa ay soo sar istaago. wuxuuna bilaabay inuu jaakadiisa kor u tuuro wuxuuna ku yiraahdaa hadda inay isticmaali awoodeeda dhabta laakiin waa igu qasbisiin isticmaal awoodeeda dhabteen la soo baxo. wuxuuna bilaabay inuu garankiisa ama fanaanadiisa iska saaro wuxuuna calooshiisa ku arkaan calaamad la yaab leh. ugu dambeyn Salman Khan come back. wuxuuna bilaabay inuu yiraahdo Rider kadinuu soo boodo dadka yimaado wuxuuna ku yiraahdaa Rider fight. Tojima wuxuu bilaabay in awoodiisa isticmaalo yiraahdo Common Rider laakiin wax awood oo soo baxay ma aysan jirin. markaas hal mar xalin dadkii ku qoslaan saadoo qosli sidoo kale u qoslayaan oo yaani ninkan iska wax walba iska dhawaaqay la yaaban yihiin. waxayna ku yiraahdaan hal jununta yaa qabi. laakiin ninkii Kiriyooto saale imika qosqoslaya daqiiqadeer kadib wuxuu ku dambeey doonaa qoomamo kadib waxa dhayso ninkii Kiriyooto soo qosqoslaya ayaa hal mar waxa inuu soo boodo Tojima wuxuuna bilaabay inuu feer ku jiyo wuxuuna bilaabay inuu cirka u diro 10 feet. Tojima wuxuu ku guuleystay inuu kooxdii oo dhan hal mar uu gabiyo oo gabigooga dhan wada laay. ardayda iyo macallimiintu waxay bilaabeen iska fiirsadaan awoodan iyo waxa caagwa keenay kadib waxa dhayna gabadhii ay la yaabto istiraahdo Tojima horta yuu yahay taariikhdiisa waxba kama garan. markaas waxa dhayna hal mar saga u soo fiirisay dramatic wuxuuna ku yiraahdaa hadda waxaan ahay Common Rider kan ka daawan jiray TV-ga ayaan mar hadda noqotay Common Rider oo TV-ga ka daawan jirtay ana waxaan noqonay iska daa Robin baan noqonayaa abtaal taatis ma ku dabadeynaya. markaas oo weynaadeen iskuulka wax ku dhaxsan sameynaya bal in aan noqdo Robin kii dhabta. markaas gabadhii waxay bilaabeen soo fiiro waxay bilaabeen u dhoolaadiyo ku yiraahdo hadeed wax walba inoo hagaageen xabiibteesti. markaas gabadhii waxay bilaabeen inay naxdo waxayna bilaabeen ka cararto wiilka. marrata al-ukhra kasara qalbahu hal mar baadaan aad inuu mar laba qalbigiisa wiilkii bash dhaho. wuxuu ka sugayay gabadhii isku soo carartay yaani hagsiiso ay dhudhunkoto laakiin bilcagsi tamaama wax loo dhacay. waxaan dhahay animeeyeen maanta asxaab xagaasan ku soo gabagabeeyo. animeeyeen wuxuu ahaa dhowr xalqadood marka xalqadayntii ugu maalayacnaysan ka boodbooday intii ugu muhiimsan baan soo qaaday. marka qulaasada wuxuu ahaa animeeyga ugu gaabnaa soo qulaasay. hadaba inta maanta ku sii seexda fadlan YouTube ka subscribe saara like saar maca salaam oo shukran fi xalqa jaay.